maxaa looga hadlay kulanka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhigiisa isutaga Imaaraadka Carabta Maxamed bin Saahid. Arrimaha ammaanka ayay labada madaxweyne isla garteen in Imaaraadka Carabta kaalin weyn ka qaato sidii dalka Soomaaliya loogu soo dabaali lahaa xasilooni amni. waxaa kaloo kulanka lamada madaxweyne ee Imaaraadka Carabta uu ku ballan qaaday in lacag 20 milyan ah ugu deeqay abaaraha Soomaaliya, taas oo la soo marin doono dowladda Soomaaliya. sidoo kale arrimaha ay isla garteen labada madaxweyne waxaa kamid ah in la fududeeyo fiisaha dalku galka Imaaraadka Carabta si ay u helaan muwaadiniinta Soomaaliyeed. waxaa kaloo kulanka labada madaxweyne la iskula gartay in dib loo furo isbitaalka Sheekh bin Saahid, kaas oo si bilaash ah ugu adeegi jiray bulshada ku nool dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho oo isbitaalku ka furnaa. iyadoo arrintaas la isla gartay in loo xil saaro guddi ka shaqeeya sidii loo fulin lahaa. madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka mahad celiyay garab istaaga Imaaraadka Carabta mar walba ay u muujiso shacabka Soomaaliyeed. kulanka labada madaxweyne ayaa lagu la faguray hagaajinta xiriirka iskaashiga labada dal. waxa ayna labada madaxweyne isku raaceen in iskaashi buuxa ay labada dowladood ka yeeshaan xagga ammaanka, ganacsiga iyo horumarinta. arrimihii la isku afgartay waxa ugu waaweynaa 20 milyan oo ay dowladda Imaaraadka ugu deeqday abaaraha, taasoo la dhexmarin doono dowladda Soomaaliya. 2 in loo fududeeyo muwaadiniinta Soomaaliyeed fiisaha Imaaraadka. 3 inay dib u bilaabmaan duulimaadyadii airlineska Imaaraadku ay ku iman jireen Soomaaliya. 4 waxaa dib loo furi doonaa isbitaalkii Sheekh Saayid oo ahaa mid si bilaash ah ugu adeega dadka Soomaaliyeed. 5 in wafdi heer sareeyo oo Imaaraadahi ay soo booqdaan Soomaaliya. waxaa labada madaxweyne isku raaceen in la sameyn doono guddiyo isku dhaf ah oo ka soo shaqeeya arrimahaas. madaxweyne Maxamed bin Saayid ayaa madaxweynaha iyo wafdigiisa uga mahad celiyay ajiibidda martiqaadkii ay u fidiyeen. waxa uuna soo bandhigay doorka ay dowladdiisu ka qaadanayso gurmadka abaaraha ka jira dalkeena, horumarinta adeegyada bulshada iyo arrimaha ammaanka oo ah caqabadda ugu weyn ee hortaala dowladnimada Soomaaliyeed. dhankiisa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga mahad celiyay dowladda iyo shacabka Imaaraadka garab istaaga ay u muujiyeen shacabka Soomaaliyeed ee ay saameeyeen abaaruhu, isagoo sheegay in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ahmiyad gaar ah siinayso xoojinta xiriirka kala dhaxeeya caalamka guud ahaan iyo gaar ahaan wadamada xiriirada soo jireenka ah ay Soomaaliya kala dhaxeeyaan. aad baad u mahadsan. tan iyo markii dib loo doortay bishii 15 May, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayuu noqonayaa safarkan kiisii ugu horeeyay oo uu ku tago dalka isutaga Imaaraadka Carabta ugana baxo guud ahaan dalka Soomaaliya. halku dhiga dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ah Soomaaliya oo heshiis ah, dunidana heshiis la ah.